waxaanu maxay ahaatay shacbi weynaha reer Somaliland iyo reer Hargeysa u soo jeedinaynaa sidii ay xusbigii noola soo saar lahaayeen iyo sidii ay maxay ahaatay noola midoobi lahaayeen iyo sidii maxay ahaatay ay noola shuraakoobi lahaayeen iyadoo cid kasta u furan yahay oo aan cidna laga xigsanahayn saaka waxaynu arkaynaa niman cadhaysan oo leh haddii aanu heli weyno aba nooca ay u dhici weydo waanu dagaalamaynaa annaga nimankaasi horta naga mid maaha kuwaana ma lihiin annagu qolooyin waxaa jira iyaguna maxay ahaatay guddi isku sheega oo maalinba suuqa cid lagaga daro dhiiri cid baa ku soo biirta meel qura ma fadhiistaan waa ilaa 2017 markii la saraxnaa marka waxaan leenahay waa barnaamij kale idinkula daydayda oo waxa aad samaysataan horta cidda waxaad matalaysaan ciidamada diidayso xisbiga taageersantiina ciidamada diidaysa inaad sheegataan oo aad tahdaan waxaanu odayaashii iyo madax dhaqameedkii xisbiga wadani baanu nahay gudida wadani baanu nahay inaad tahdaan baa wanaagsan dadka dee qarxas magaca qarxas la leeyahay waa magac ballaaran oo beel weyn ka dhaxeeya wax maanta dhibaataayo ka dhaxeeyana ma jirto laakiin cid walba sideedii wax walba u socotaa way labadan nin waa saaxiibkay iyana bixi sidii soo eegaya laba nin oo sheegana waxba ka dhaxdhaca halka aad ku baxsan kartaan anoo hiilinayn aloo dhaqaaqan leh ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu nabad inoogu dhaliyo waxaynu ku taagannahay geestaan weeye doorashaa la gelayaa doorasho waxaa la gelayaa Somaliland doorashada hore Somalilandna mid waliba nabadgelyo iyo waxa ku dhamaatay sharaf tan waxaanu doonaynaa dadka ololeynaya iyo dadka la dooranayo iyo dadka shacabka ah oo horta in nabadgelyadii iyo sharaftii laga taliyo ee laga talinin wax dadka iska hor keena inaan laga talinin midna meesha ku jirtaado xisbiga wadani wuxuu yiraahdaa waxa uu nahay garxajis annagu haddaan ciidagalnay garxajis ma nihin ma doonayno wax garxajis yiraahdaa waayo dadkan xukumaya oo dalkan xukumaya oo qabiilaan sheeganaya meesha ma qabato Somaliland baanu doonaynaa inaanu madaxweyne ka noqono Somaliland waxaanu doonaynaa inay nagu taageerto inaanu anagu dad aanu nahay xuduntii Somaliland dadkii ahaa inaanu nahay oo Somalilandnimo iyo dhaxahaan baanu wax kaga doonaynaa qabiilo waxba kuma doonayno qofka qabiilo wax ku doonaya ha dhaco hadduu wadaniyayna ha dhaco hadduu qabiilo wax ku doonayo hadduu kulmiyo yahay uu qabiilnimo wax ku doonayana ha dhaco anagu Somalilandnimaan wax ku doonaynaa waxaanu doonaynaa in Somalilandnimo lanagu taageero waxa leedahay hal laga daayo hadallada xanafta leh ummadda kala dilaya hal laga daayo halkan waxa fadhiya cuqaashi ciidagale iyo wax garadkeedii ayaa fadhiya cuqaasha ciidagale iyo wax garadkeedu waxay dadka ugu taliyaan baa la raacaya lama raacayo nin meel ka soo taliyo oo dan qaar qabsaday wuxuu yaalo lagama talinayo waxaanu leenahay haddaanu nahay xusbiga u cid Soomaalinimo iyo dhaxahaan iyo ummadoonu noo midaysan baan wax kaga doonaynaa sidaa nalagu taageero waxa nalagu siiyo anigu horaan u hadlay oo aan soo jeediyay hadal aad iyo aad dad uga xanaaqeen danalihi dad danala ka xanaaqay hadalkaygii maalintii dhaweyto dadka danahaliina waxa weeyaan de qof dan la iyo qaran dan li way kala duwan anoo qaran dan laan u hadalay laakiin qof dan la uma aan hadlin hadalladaydi waxa kamid ahaa cuqaash ciidagale waa tan in sheegay inta in leego kale oo hawlo ku maqan oo nolol fikirina way jirta nin wada danta Somaliland war ninka danta Somaliland wada ee cadawgeenu necab yahay miyaynu nacnaa waa maya waynu jeclaanaynaa faysal kursiga soo gaadhay sida ugu xanaaqayaan waa ogtiin siduu u difaaco waa ogtiin siduu itiraafka u raadiyo waa ogtiin sida dalalka iyo dadka necab Somaliland inay hore u socoto siday u necab yihiin waa ogtiin maska daalinki siduu u necab yahay waa ogtiin Somaliland caruurta iyo dumarka waxaanu leenahay dhalinyarada codayse yaan la idin ma jara habaabin waxa din ogaadeena ayaa la yidhi waarisa ka waran haddii kooda laga daba qaylinayo ay eryanayaan ka raacbi ninkaasaa xigmad dhameeyay waxaan idin leeyahay war ninkaa laga daba qaylinaya cadawga Somaliland nicbi raac aniga markhaatiga wuu dhacay mar haddii cuqaashii ciidagala ay timi oo hadalkii aan sheegay ay yidhaahdeen oo intaa in la eego kalena ay hadli doonto
martina waxaanu u nahay faysal cali waraabe xaq baan lagu leeyahay waxa geela bahalka geela la yidhaahdo dhiilkaa lagu maalaa dhiilka geel bilaa dhiila lama maalo beesha ciida gale haddii aanu nahay waxaanu lahayn xusbiga la yidhaha ucud dhiil buu noo ahaa somalilan taladeedaanu badh lahayn waxa weeyaan waxa la isku wada laynayaa waa ururo aan weli xusbiya gaadhin annaguna xusbiba baanu lahayn xusbi qarana xusbi qarankayagii if iyo aakhira inaan meel la dhigin raalli kama nihin reer somalilan iyo gobolka maroodi jeex ee aanu wada leenahay reer maroodi jeex iyo reer somalilan oo dhan waxaanu marti uga nahay in xusbiga ucdiyo faysal haddii alla kuu roon yahay wax nagalala qabto intaasaa lagu sharaxay